haweenka jaaliyadda Somaliland ee magaalada Hanislow UK ayaa deeq kaalmaha soo gaarsiiyay qaar ka tirsan deegaamada ay abaaruhu saameeyeen ee gobolada Togdheer iyo Oodweyne. deegaamada kaalmadani la gaarsiiyay ayaa kala ahaa Oodweyne, Xaaxi, Galoole, Xidhxidh iyo Shilmaale, kuwaas oo dhammaantoodba ay saameyn ballaaran ku yeelatay abaarta xilligani guud ahaanba ka jirta gobolada Somaliland. deeqdani ka timiyay haweenka Somaliland ee Hanislow UK oo isugu jirtay raashin iyo saliid ayaa dadkii la gaarsiiyay mahadnaq ballaaran u soo jeediyeen haweenka deeqdani soo dhiibay, iyagoo ka dalbaday sidoo kalena inay taakuleyntan oo kala u fidiyaan dadka magaranaysa abaaruhu ay hayaan magaranaysa deeqda ilaahay ugu soo dhiibay u keenay ayaan u mahadnaqaynaa in inagana ilaahay uu caawiyo oo waqtiga magaranaysa wanaagsan aakhiradooda ilaahay inuu hagaajiyo oo waxay ay doonayaan wanaagsan ilaahay uu siiyo ayaan u mahadnaqaynaa. marka wixii dambana sidaas leeginay haddii ay laba kuurnooyay ummadooda abaaruhu hayaan inay ku soo gaarsiiyaan ururkiinan caalamiga ah ee islaamka ah ee hablahan islaamka ee taakulayna dadkoodii u soo ambabaxay abaartu hayso way ku mahadsan yihiin. ilaahay haydiin soo dhiibo waxa dadkiina ku taakulaysaan. maalintii reer miyiga ma waa maalin adag maanta, way u dhammaatay dad iyo xoolo. ilaahay gacanta weynahayna siiyo. idinkana hadda badi qurooyin dabadda ku maqaliyo kuwa gudaha ku joogay iyo dawladda iyo ururka caalamiga iyo gidigiinba u soo gurmada reer miyiga baanu nahay. dadkii xoolaha lahaa baanu nahay, shirkadii xoolaha dhaqanaysaanu nahay. haddii nala waayo khalaas Soomaaliya way u dhamaatay, waqooyiga Jamhuuriyadda Somaliland way u dhamaatay. deeq lacageed ayaanu gaarsiinay iyo raashin والله كاسو ولا حريه سلسلة بكل وتسلسلة أنا قلنا وقت الرعاية واحد دون تنكر وكاهبني ما يروح يرايرو هنا بختيري تواني دين شيء أنت كرابات فول في بعيسى دتكينا سوعوي إلهي النص صبري إلهي والرحمن والرحمة بركة إلهي النصي عادي عاد بانو يدكم حدنا قينا وح النص صوتي كرتنا النص صوتي ugu dambeyntii deegaamada kaalmada la gaarsiiyay ayaa iyagoo ah kuwa ay ka muuqdaan nolol aad u adag, iyagoo indhahaagu ay qabanayaan dad maskaxda ka jiran iyo kuwa abaaraha daran ee deegaamadaasi ka jira ay dhibaatooyin badan ku keeneen, kuwaas oo xilligan u baahan kaalmo iyo gargaar loo fidiyo. deeqdani la soo gaarsiiyay dadkani ku abaaraysan deegaamadaasi wax weyn ka tari doontaa baahiyihii haystay, walow aanay wada dabooli karin baahida iyo darxumada dadkaasi ka muuqata. maxamed caawad maxamed, telefishinka caalamiga ee Somali Channel, Burco.